بسم الله الرحمن الرحيم دقمة عبد العزيز قبل كبنادر إن لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته مواطنين سوماليات وكنا في باي قرح أي قليها رجح صداها وسو أبابولين قلبتي شنتي يسقال دقيقة أما كوي طبنكي يسقال دقيقة أي قرح اسمي ذا منها الله استعمالي قاري اللي جسوا بيحش والحاق قرحة إيو argagixiso isla markaasna rabtay inay qasaare geysiiso dad shacab ah oo ku jiray hotelka Iliad ee ku yaala degmada Cabdicasiis qaraxa markuu u dhacay argagixisadu gudaha ayay u galeen hotelka waxa meesha ku dhintay qasaare dhimasho ayuu qaraxu keenay oo gaaraysa 16 qof 12 qof oo shacab ah iyo 5 kamid ah nafti halagayaasha ugu tala galay inay naftooda iyo nafta shacabka Soomaaliyeed gumaadaan sidaas oo kale waxa meesha ka dhacay dhaawac gaarsiiyay ilaa 13 qofood oo goobta ka agdhawaa dadkaas dhaawaca iyo dhimashadu waxay isugu jiraan shaqaalihii hotelka iyo dad shacab ah goobta ka agmariyay iyo argagixisadii iyagu soo abaabulay qaraxa inuu meesha qasaarahaas ka gaarsiiyaan saas oo kale waxa jira burbur hantiyeed oo soo gaaray hotelka iyo gawaaridii dadka shacabka ah oo jidka ka agdhawaa agaarka mariyay howlgalka oo xoogaa yar dheeraaday wuxuu soo gaaray ilaa 10kii fiidnimo sababta uu nolol dheeraadana waxay ahayd in aan yareyno isla markaana aan ka taxadarno inuu qasaaruhu intaas ay dhaafin oo qasaaro badan meesha uusan keenin hotelku wuxuu ahaa hotel dad shacab ay isugu yimaadaan oo loo soo shaah tago marka ujeedka argagixisaduna kaliya wuxuu ahaa inay qasaaraha ummadda kordhiyaan waxa hotelka laga badbaadiyay dadweyne gaaraya ilaa 300 oo qof oo isugu jira dad shacab ah iyo shaqaale dawladeed oo hotel ku sugnaa aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh raxiim sida afayeenka ciidanka booliisku sheegay galabta halkan 5 daqiiqo waxa ay kooxaha argagixisadu ku soo qaadeen hotelkan oo dad Soomaaliyeed oo ganacsato ah oo jecel dalkooda inay horumariyaan ay halkan ka dhisteen weerar sida uu sheegayna weerarkaas dhowr saacadood gudahood ciidanka amniga guud ahaan laamaha amniga isku wada jira iyo booliiska si wada jira afjareen weerarkii halkan lagu soo qaaday dad badan oo shacab ah oo hotelkan u yimid inay waqti ku qaataan baa halkan ku jiray oo laga badbaadiyay aad iyo aad baan rabnaa anoo ku hadlaaya ka gobol banaadir ahaan annaga iyo maamulka gobolka inaan uga mahad celino ciidanka sida wanaagsan oo markiiba ay uga jawaabeen gurmadka degdega oo shacabka ay u fidiyeen argagixisadu mar walba waxay isku dayaysaa inay qalbi jabiso shacabka magaaladan degan oo runtii marxalado adag soo maray u soo dhabar adeegay xaalado intaan ka adag waxaan ognahay muddooyinkii ugu dambeeyay inay yaraayeen weeraro noocan oo kale inay fuliyaan ciidanku mar walba kuwa intaan ka badanna waa badbaadiyaan waa ogtihiin oo muddooyinkii u dambeeyay ma jirin weerar noocan oo kale ah runtiina waxaan uga tacsiyanayaa sida hadda noo sheegay dhimashadu waa 13 qof oo ay ku jiraan 5 qof oo kamid ah yihiin nimankii weerarka soo qaado argagixisada ahaa iyo dhaawac 13 ah oo shacab ah dhaawacyadana runtii isbitaaladan ku booqanay oo maamulka gobolka Banaadir booqday wixii aan la qaban karno gurmad ahna diyaar u nahay inaan la sameeyno laakiin hal mid aan ka baran karnaa waxaan ka baran karnaa waxay tahay cadowgu inuusan wax naxariis uusan u hayn dadka magaaladan degan ayaguna ay u diyaar garoobaan sidii mar walba dhici jirtay inay isdifaacaan annagu hadda waxaan ku jirnaa waxay tahay waa isdifaac mar waa dhacaysa oo nalaga soo hoos baxo oo laamaha amniga iyo ayagoo dadaal ku jira ay mar wax ka soo hoos baxaan laakiin sida ogtihiin qaraxyadan waxay ahaan jireen mid routine bil gudaheeda waxa dhici jirta 5 qarax oo noocan 5 meel oo la mid ah la weerari jiray marka hadda annagu waxaan ku jirnaa dadaal ciidanka booliiska iyo laamaha amnigana waxaan uga mahad celinayaa intii uga dhimatay ayaga laftirkoodu dagaal ay ku jireen waa uga tacsiyeenaya guud ahaan shacabka magaaladan degan waa uga tacsiyeena gaar ahaan ganacsatadii hotelkan lahayd oo sida quruxda badan u maalgashatayna waxaan u soo jeedinaynaa inaysan ka niyad jabin niyaddii ay dalkooda u hayeen waa mahadsantihiin